diyaaradan droniska aan duuliyaha lahayn ee idiin muuqata ma aha Maraykan ama Faransiis diyaarad lagu sameeyey waa farsamo Turki nooceeduna yahay Barakdari TB2 sida muuqaalka fiidiyogan ku cad waa weeraro iyo sifayn uu Turkigu ku qaaday Con Oston hogaamiyihii ugu cadcaddaa ee ururka PKK ee maamulka Sinjar ee waqooyiga Ciraaq Maraykanka ayaa cunaqabatayn saaray inuu hubka noocaas ah ee casriga ah dalkiisa uga dhoofiyo Turkiga muddo aad u dheer waxay Turkigu ku guuleysteen inay samaysteen diyaarado drones u gaar ah taasoo ka dhigtay dawladaha waaweyn ee dhoofiya soona saara halka marka hore ay ka ahayd macmiil ku xiran dawladaha iyagu soo saara kana dhigtay Turkiga mid saaxadda caalamka kula loolama soo saarista droneska dagaalka sanad ka hor intii aanu xisbiga horumarka iyo cadaaladda la wareegin xukunka dalka Turkiga ayay ahayd taariikhda markii ugu horeysay ee Maraykanku ku weeraro Afghanistan diyaaradaha aan duuliyaha wadan ee loo yaqaano droneska waqtigaas oo ahaa bilowgii Maraykanku diyaaradaha droneska uu hawada caalamka xukumayay xukunkaas oo soo idlaaday sanadii 2015 sababna u ahayd dawlado kale oo caalamka ka tirsan oo bartay farsamada droneska soo saaristeeda oo ay ugu horeeyeen wadamada Shiinaha iyo Turkiga dronesku waa hub saameyn ku leh xagga istiraatiijiyadaha dagaalka qiimihiisuna aad u jaban yahay guul gaar ahna u soo hooya dalkii samaysta kana dhigta dawladaha caalamka ee lagu tilmaami karo quwadaha khatarta ah laakiin sidee buu Turkigu uga mid noqday dawladahaas khatarta ah runtii arrinkani waxa uu qaatay waqti aad u dheer iyo daandaansi badan oo loo geystay dalka Turkiga sheekadani waxay bilaabatay sanadii 1975 markii Maraykanku cunaqabatayn soo rogay oo ku mamnuucayo inuu hubkiisa u dhoofiyo Turkiga sababo la xiriira weerarkii Turkigu ku qaaday Qubrus waxaa xumaaday xiriirkii ka dhaxeeyay Turkiga iyo reer galbeedka taasoo bedeshay fikraddii ahayd in Turkigu hub soo dhoofsado isla markaana indhaha u furtay in wax soo saarka dalka ahmiyad gaar ah la siiyo isagoo aasaasay dhowr shirkadood oo soo saara hubka kala duwan shirkadahaas oo badankoodu xoogga saaray soo saarista rasaasta iyo hubka yaryar sida shirkadda Thai ee samaysay gantaalada hawada loo diro iyo gantaalada lagu bartilmaameedsado diyaaradaha droneska oo markaasna ahaa ahmiyadda ugu weyn ee Turkiga ma uusan samaysan karin xilligaas wuxuu Turkigu soo iibsaday 6 diyaaradood oo droneska nooceedu yahay Janaab 750 sac ugana gol lahaa hawlgallo indhayn iyo ilaalin laakiin diyaaradahaas awoodooda oo aad u yara awgeed waxay soo gudbin jireen macluumaad qura taasoo kaliftay in Turkigu heshiis la galo Israa'iil kana dalbado diyaarada droneska nooceedu yahay Heron oo ay farsameyso Israa'iil balse 5 sano kadib ayay Turkiga u suura gashay inuu helo diyaaradahaas markaas oo ahayd sanadii 2006 droneskan ay ku rakiban yihiin kaamarado laguna hagayo remote ayaa muddo kadib droneskii xumaadeen eedayna Turkigu u jeediyay Israa'iil in falkaas ay ka dambeeyeen waxaana dib ugu celiyeen droneskii Israa'iil si loo cilad bixiyo arintaas oo iyana qaadatay sanado kale waxa markaas droneska in la daaro u qaabilsanaa farsamayaqaano Israa'iiliyiin ah arintaas oo Turkiga walaac ku abuurtay in sawirada iyo muuqaalada hawlgallada uu rabo Turkigu inuu fushado ay sii mari doonto sirdoonka Israa'iil ugu horeynba 2004 ciidamada Turkiga ayaa soo jeediyay in tartan dawladdu u fidiso shirkadaha samaynta iyo casriyeynta diyaaradaha aan duuliyaha wadan isla markaana adkaysi leh waxaana tartankaas ku guuleystay shirkadda Turkiga ee samaynta gantaalada hawada loo diro ee loo soo gaabiyo Thai guulihii u horeeyay waxay ku soo bandhigtay soo saarista diyaaradda Anka taasoo awood u leh inay ku duuli karto joog sare cabirkiisuna yahay 30,000 oo fiid muddo 24 saacadood hase ahaatee dhalisay inay ku burburto hawada 10 daqiiqo gudahood kadib markii ay kacday fashilka ku dhacay diyaaraddan inay hawada ku burburto ayaa ka dambeeyay matoorka iyo qalabka gudaha qaarkood oo laga soo iibsaday 2 shirkadood oo kala ah Jarmal iyo Shiines arrimahaas oo dhan ayaa ku kalifay Turkiga inuu soo saarto matooro dalka gudihiisa lagu sameeyo sababna u noqday in diyaaradii Anka ay 2011 si guul ah u duusho 2013 ugu biirto ciidanka cirka ee Turkiga taasina wali uma suurtagelin hadafkii Turkigu lahaa ahaydna droneska hubka qaada diyaaradaha droneska ah ee ay soo saarto shirkadda Thai ayaa ahaa kuwa ku koobnaa indhayn iyo saadaalin kaliya laakiin markii weerar ay noqoto waxa laga marmaan ah diyaaradaha droniska ah ee hubka xambaara
jiilkii labaad keliduul. maraykanku umuusan oggolaan inuu diyaaradihiisa nooca ugaadhsiga loo yaqaano uu ka iibiyo turkiga sababo la xidhiidha cilaaqaadka israa'iil kala dhexeeyey turkiga oo aad u xumaa. sidaas awgeed turkiguna go'aansaday inuu keli duulo, wuxuuna sannaddii 2015 uu ahmiyad gaara siiyey inuu samaysto diyaaradaha dagaal ee aan duuliyaha wadin. wiil dhallinyaro ah oo 26 jir ah una dhashay dalka turkiga laguna magacaabo saljuuq beerakdaar ayaa waxa uu mas-uuliyiin dowladda ka socday ku qanciyey inay ka soo qayb galaan bandhig uu markaasi ku soo bandhigayo diyaarado aan duuliyo wadin oo daroonis ah gacantiisana uu ku sameeyey. xilligaa ka hor oo ku beegneed 2007 waxa uu saljuuq ka soo shaqeeyey shirkad ay qoyskiisu leeyihiin oo lagu magacaabo bayrakdaar makiina una soo saaray ciidanka 19 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha wadin. sannadkii 2015 ayuu soo bandhigay diyaarad cusub oo uu markaasi gacantiisa ku sameeyey oo lagu magacaabo bayrakdaar TB2. diyaaraddaas oo ku guulaysatay inay duqayn ka geysato masaafo dhan 8 kilomitir wax ka fog ayna ku duulayso 4 kilomitir oo joog sare ah. isla sannadkaas gudihiisa waxaa saljuuq oo ahaa ninkii farsameeyey diyaaradda waxa uu guursaday gabadh uu dhalay madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan, gabadhaas oo lagu magacaabo Sumaya. diyaaradaha bayrakdaar TB2 waxay lafdhabar u noqon doonaan ciidamada cirka ee turkiga. awoodaheeda farsamo ee casriga ah ay diyaaraddani wadato ayaa u fududaysay inay 7.3 kilomitir oo joog sare ah ku duusho muddo 24 saacadooda, islamar ahaantaana ay xambaari karto awood culayskeedu yahay 55 kilogaram. bishii 6 ee sannaddii 2019 waxay diyaaraddu dhigtay rikoor caalami ah 100,000 oo saacadood oo duulimaad in ka yar 4 sannadood. guulaheedii isdaba joogga ahaa oo ay ku bartilmaameedsanaysay ururada hubaysnaa ee kurdiyiinta ayaa turkiga waxaa kale uu go'aansaday in bartilmaameedyada uu ku ballaadhiyo diyaaradihiisana u isticmaalo inta ku hareeraysan xeebaha labada badood, taasoo dhalisay khilaaf Giriiga iyo Qubrista uga yimi. middaas kaliya kuma eeka ee turkigu waxa uu 12 diyaaradood oo nooca bayrakdaar TB2 guddoonsiiyey xulufadiisa dowladda kumeel gaarka ah ee Liibiya si ay isaga difaacdo weerarada uga imaanaya dhanka jabhadda mucaaradka uu hogaaminayo Generaal Khalifa Haftar. waxay kaloo turkigu heshiis uga iibinayaan 12 diyaaradood aan duuliyo wadan la saxiixdeen dowladda Ukraine, waxayna turkigu sii laba jibaareen diyaaradihiisa oo 2015 gaarayay 32, halka 2019 uu soo saaray ilaa 94 diyaaradood. kobaca intaa leeg waxaa kaloo hareer socday diyaaradihiisa anka oo gaarayay ku dhowaad 30 diyaaradood. quwaddaasi waxay udubdhaxaad u noqon doontaa ciidamada dhulka, badda iyo cirka, sidoo kale ciidamada daraag, hay-adda sirdoonka iyo ciidamada booliska. bishii 8 2018 waxay diyaaradda anka fulisay duqayn dhanka cirka oo laga hagayay dayax-gacmeedka. kii saddexaad daroniska ku duulaya gantaalo casri ah. horumarkii baaxadda weynaa ee uu ku tallaabsaday turkigu dhanka soo saarista daroniska sannaddii 2019 waxay labada diyaaradood ee bayrakdaar iyo anka dhigeen wacdaro duulimaad in ka badan 24 saacadood. hase ahaatee labada diyaaradood waxba kama aha markii loo barbar dhigo diyaaradda jiilka cusub. diyaaradda Akinci waxay ka mid tahay diyaaradaha jiilka saddexaad qaab ahaan iyo samays ahaanba, dherarkeeduna gaarayo 20 mitir baal ilaa baal, awoodna siinaya diyaaradda inay ku duusho 15,000 oo kilomitir oo joog sare ah, halka ay xambaari karto culays u dhexeeya 450 kilogaram ilaa 900 oo kilogaram, taasoo u sahlaysa xambaaridda gantaalada loo yaqaano cruise iyo sawaariikhda lagu bartilmaameedsanayo dherer cabirkiisu gaaraya 600 oo kilomitir. waxayna diyaaraddani leedahay raadaar casriya, shabakad isgaadhsiineed oo dayax-gacmeedka laga hagayo iyo hab lagula dagaalamayo burcadda internetka ee soo weerara sistamkooda. dowladda turkigu waxay ku tala jirtaa inay soo saarto in ka badan 36 diyaaradood ilaa inta laga gaarayo sannadda 2022, iyadoo u fududaynaysa shirkadaha soo saaraya inay ka cafiso canshuurta ayna u fudiso taageero maaliyadeed. waxaana suurtagal ah in Akinci ay bedeli doonto diyaaradaha F-16 howlgallada ka dhanka ah PKK, intaasna ay u dheer tahay ilaalinta indha-indhaynta dhanka cirka, badaha iyo bariga dhexe si maalinle ah, qiimaha uu ku kacayo iyo kharashkiisuna aad u hooseeyo. diyaaradda Akinci marka laga yimaado waxa ayana jirta diyaaradda Canqa Aqoonsol oo leh 2 matoor awoodna u leh inay xambaari karto culays kor u dhaafaya
700 oo kilogaram waxayna qabataa hawlo isugu jira indho-indhayn iyo ilaalin iyo weerarba. Turkigu waa awoodda labaad ee ururka NATO waana dalka lixaad ee awoodda inuu soo saaro diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee droniska ayna ku rakiban yihiin gantaalo iyo farsamo elektaroonig oo casri ah. laakiin barnaamijkeeda gaarka ah ee ku saabsan droniska waxaa barbar socda isku filnaanshaha uu rabo inuu ka gaaro dhanka soo saarista hub u gaar ah. Si uu u gaaro isku filnaansho dhanka hubka ah wuxuuna soo saaraa baabuurta gaashaaman, doonyaha dagaalka, diyaaradaha helikabtarka iyo dayax-gacmeedyada. shirkadda Saad Shipbuilding oo himiladeedu tahay inay soo saarto maraakiibta dagaalka ee diyaaraduhu ka dulkacaan, iyadoo shirkadda Outcar ay ku guulaysatay samaynta taangiga lagu magacaabo Altay oo kasbaday sumcadda sanadii u dambeeyay. dhanka kale shirkadda Aselsan oo u qaabilsan farsamada qalabka ciidanka elektarooniga ah ayaa ku guulaysatay inay u dhoofiso qalabkeeda in ka badan 60 dawladood oo caalamka ah. Hawarun Turkigu soo saarista hubkiisa wuxuu ka leeyahay ahdaaf siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Tan koowaad baahideeda hub ee dhanka dawladaha reer galbeedka iyo Mareykanka ayay ku dhimaysaa, mana noqon doonto go'aamadeedu mid ku xirma cunaqabatayn hub taasoo sanadihii hore uga imaan jiray Jarmalka iyo Mareykanka. Tan labaadna waxa u suuragali doonta inay hubkeeda u iibgeyso caalamka, halkaasna ay ka hesho kobac dhaqaale oo aad u sareeya. dhoofinta hubkeeda hadda ma dhaafsiisna 3% marka loo fiiriyo dhoofinta hubka ee caalamka intiisa kale. inkastoo ay aad u yar tahay, haddana sanadihii u dambeeyay laga soo bilaabo 2016 laba jibaar ayuu kobcay. sidaas awgeed Turkigu wuxuu ku socdaa xawli dhanka awoodda, wuxuuna ku caanbaxay soo saarista droniska, hubka dawlad walba oo awood leh dunida maanta ku taamayso dagaalada mustaqbalka.